waxaad si ogaataa markuu albaabada ka soo galaya shaydaanku irbaduu sitaa ama rasaas bay loo cadow Soomaa rasaas ku sitaa marka rasaastaana iyadana waa in la socotaa sida looga gaashaamanayo waxa weeye casabiyada iyo caatifada iyo carada waa injectionkiisa irbadaha ku dhufanaya way markuu ku yimaado irbadiiba ku dhufanaya casabiyada reer hebel iyo qabiyaaladii iyo wadaadiya waran la midka ah qad starmaysa diibka reerkiina la caado iska tasbiixsanaya subaxaadii ra dhiganaysa horta markaas difaac galaysa ama xisbigiina baa la caayay ama dawladdiina xabad irbadu kula helay wuxuu kugu dhufanayaa waxa la yiraahdaa caatifada marba qofka laga yaabaa inuu aad u faraxsan yahay oo farxadda uu kaga faa'iideeyo haddaba cadawgaas balaan buu leeyahay qorshe kaartu dajiyay khariidad markuu ina soo weerarayo khariidadiisa dhageyso culimada ka hadla suluuka iyo adiga jeerka warama tarbiyada iyo zuhdiga raqaiq ibn qayyim rahimahullah su'aad muslimin masalada ila 8 siyood buu khariidadiisa iyo maabka u soo dhigaya oo weerar ku yaala ila markaad colisaysaa waxaad ku xisaabtamaysaa teeba sidoo waxyeelada ugu badanaysa horta waxyeelada ugu badan inuu kaga nasan karnaa cadawgaas ugu aamusina waa maxay taw horeysa waxa weeyaan ninku ma han yara in kaara ku dhacdo shaydaanku ma hawl yara mana han yara halka u weyn buu kaaga qabanaya gaalnimadu dadka u bandhiga horta kama thali shaydaan il qaala lil insani kfur horta gaalo ugu leeyahay hadduu gaalnimada ku kari waayo bidcadu u qurxiyaa wa khatar badan waa qofkiyo bilaadiinaho isu haysta inuu ama waxaan ilaahay diinahay buu ugu cibaadaysanaya wuu isla toosan yahay saaxibul bidca hadduu taana ku kari waayo dambiyada waaweyn buu qurxinayaa in gaalnimada ka sokeeya dhaca sinada dulmiga xanta waxa soo qurxinaya hadduu taana ku kari waayo dambiyada yaryar buu leeyahay ilaahay inna allaha ghafuurur rahiim way sida ka dhaafaysa iska korkordhi agaha iska taataabo iska daadaawo waxaan way ismasaxaysaa saqiirooyinku u badinaya hadduu taana ku kari waayo amalada fadliga badan ayuu kala dagaalamayaa amalka laga fadli badan yahay ayuu ku ururinayaa wuxuu isleeyahay intaas oo fadliya hadduu helo horu u liibaanayaa xagga hoose u riix taana hadduu ku kari waayo waxyaabaha mubaaxa ah ayuu u badinayaa iska dharago iska seexo oo iska daawo oo iska sheekeeyo salaada gadaal baad ka gaadhay wadaadada si wadaane aad isaga raaxaysa buu leeyahay iska dhaqo waxyaabaha mubaaxa ah ku mashquulinaya hadduu taana ku kari waayo kan waan in adkaystay moogti ninka halka maraya ee intaasoo difaac soo xidhay uu adag yahay markaana wuxuu ku soo kicinaya ehelka islaanta iyo ciyaalka iyo qaraabada iyo waxaas waxaynu Soomaalida ka maqashay shaydaanku ciyaalka culimada ciyaalku u dhax fariistaa waxba ka jira ciyaalkii buu qaar duufsanaya islaantii baaba ku soo kacaysa heerkii baa ku kacsan sheekh hadduu taana ka mijido hore uga sii gaashaanto iyagiina ilaahay gacantiisa ku hanuuniyo wuxuu ku soo kicinayaa markaa dadka wadanka kula nool yamyamtooda iyo waxa liita iyo waxa balaaye baas qolo badan oo caayisa darkaysa bay'adiisa hadduu hagaajiyana gaalkiiba uu joogaa weerarku xagga sare markaana ka imanaya intaasoo marxaladood waa cadowga kaartooyinkiisa waxa kala mudan inaynu ogaano albaabadu ka soo galo inagu rugteen iyo reerkeen inuu fadhinaa albaabu ka soo gala hadaba albaabada waxa labay ku soo ururayaan shubhada iyo shahwada shubhada waxa weeyaan inaad shaki uu kugu abuuro oo adigoo diinba doonayo dadaalaya aad shubhaadku ay kugu bataan oo waxaan diinahay inaad ku warwareegto oo shaki badan uu ku geliyo waa mid waa qofka dadaalaya diinta ku dadaalaya waxa labaad uu ka soo gala albaabka shahwada waa taa aynu ka soo sheekaynaynay dee dadkan aad arkaysa ee maanta qaawanaanta iyo akhlaaq xumada iyo caalamka waxa lagu sii daayay waa shahawaadka in xubnaha taranka la dhargiyo oo caloosha la dhargiyo oo indhaha la dhargiyo oo dhagaha la dhargiyo oo xaaraan iyo xalaal kala eegin shahwadaas weey albaabka kalena waxa markaa mudan inaad ogaato albaabada maxaa lagu xiraa iyagana waxa lagu xirayaa shubhadaas iyo shahwada cilmi iyo cabsi Allah wattaqullaha wa yuallimukumullah qofku hadduu cilmi yeesho shubahaad ku noolaan maayo aqoon buu helaya albaabka uu iska xiraya hadduu cabsi alla leeyahayna kolba qofka cabsidiisu intay tahay ayaa uu noqdaa shahawaadka xiisaynta uu xiisaynaya marka haddii cabsidiisu aad u badan tahay shahawaadka raacidood way ku yaraanayaan qofka
labadaasaa lagu xidhaa waxaad si ogaataa markuu albaabada ka soo galaya shaydaanku irbaduu sitaa ama rasaasba ila waa cadow soo maaha rasaas buu sitaa marka rasaastaana iyadana waa inaad la socotaa sida looga gaashaamanayo waxa weeye casabiyadda iyo caatifadda iyo cadhada waa injectionkiisa irbadaa uu kugu dhufanaya wey markuu kuu yimaado irbadiibuu kugu dhufanaya casabiyadda reer hebel iyo qabyaaladii iyo wadaadiya waran la midkaa waad istaarmaysa dii marka reerkiina la caadado iska tasbiixsanaya tusbaxaad yara dhiganaysaa horta markaasaad difaac galaysa ama xisbigiinii baa la caayay ama dowladdiina xabad irbadu kula helay wuxuu kugu dhufanayaa waxaa la yidhaha caatifadda mar baa qofka laga yaabaa inuu aada u faraxsan yahay oo farxadda uu kaga faa'iideeyaba uu xagga kale ula doolo oo wax badanoo xaaraana uu ogolaado wax badanoo xaaraana uu fasaxo oo caatifaddu ka faa'iidaysanaya cadhaduu ka faa'idaysata ta ugu khatarsana adigoo saa isaga caadiya ama qof kuu imanaya ama waxbaad arkaysaa waad cadhoonaysa waad gariiraysaa go-aamo aan caadi ahayn baad qaadanaysa marka rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam wuxuu ina barayaa waxyaabaha lagu gaashaantay inuu ka mid yahay dikriga ilaahay oo la badiyo la xuso iyo isticaadada waxa la yidhaha asxaabi buu arkay intuu cadhooday qowlaladu kareen oo indhow casaadeen nebigu wuxuu uhi kelmad baan ogahay ninkaasi hadduu ku dhawaaqi lahaa culayskaasi uu ka degi lahaa acuudu billaahi min ashaydaani arajiim bal tijaabi adiga oo cadhaysan haddaad ku celiso acuudu billaahi min ashaydaani arajiim ood waddo waxaad arkaysa xaraaradaadiiyo hoos u sii degaysa marka waa inaad ku xisaabtantaa wakhtigaa aad isbedelaysa caatifadaada ama casabiyadaada ama cadhadaada in irbadihii ay kugu socdaan cadowga oo albaabkii intuu ka soo galo soo jebiyey khadkii difaaciina wuu soo jebiyey albaabkiina wuu ka soo galay irbadiina wuu kula helay marka sida looga gaashaantaana waa sidaa waxaasoo dhan dee aayaadkiiyo nusuustay ku jiraane laakiin waxoo dhan waxa u muhiimsan horta inaad ogaato cadow ma yahay iyo inaad ku baraarugsantahy wax laga yaaba imika adigoo halkaa fadhiya ayaad isla sheekaysanaysa waad fikiraysaa waxyaaba xun baad ku fikiraysaa kolba mawjadaa ku soo maraya adigu waxaad isleedahay adaa tashanaya laakiin waa lagu heliyaa waxaad garanaysaa kolka dambeed iska naarto mar markii dhaweytay markaad waxaa ku fikiraysay miyaanad caadi ahayn talow dee waa lagugu daldalayo waa lagaa dhexadlaya ismaad ogeyn allah ina asturo allahuma inaka cafuun tuxibu alcafwa facfu cana sala allahu calaa nabiyina muxamedin waaalihi wasaxbihi wasalam wasubxaana rabbi